inta badan buugaagta falsafadda ahi waxa ay la yaab ku yihiin mawduucyadooda iyo waxyaabaha ay ka kooban yihiin, kuwaasoo qaarkood si toosa ula hadla nafta bani'aadamka, qaarna ay cabsi geliyaan qalbiga akhristaha. Waana farshaxan casri ah oo suugaaneed ilaa xad, balse sabab ma noqdaan buugtaasi dhimashada akhristaha marka uu isku dayo inuu akhriyo waxa gudaha ugu qoran. Marka laga reebo buugga hooska ee derbiyada dhimashada, buuggan oo sannado badan ahaa qarsoodi dadka wereeriyey. Haddaba yaa qoray buuggan? Waa maxay sirta ku qarsoon sabab u noqoshadiisa dhimashada akhristaha? Barnaamijkan ayaad kaga bogan doontaa ee ku soo dhawow daawade. buugga hooska ee ka soo baxaya derbiyada dhimashadu waa buug falsafad ah oo uu qoray qoraal Mareykan ah Robert Kitzie sanadkii 1863. buuggan waxaa loo tixgeliyaa inuu yahay buugga ugu halista badan adduunka, maadaama uu caan ku yahay inuu noqday buug dilaa ah oo aysan akhristayaasha midkoodna taaban, iyaga oo ka warqaba in ay geeri lama huraan ahi sugaysa ma ahaane. Dhimashadan la yaabka lehna waxay ahayd sababta kicisay dood ballaaran oo ku saabsan buuggan, taasoo dadka ku kaliftay inay raadiyaan sababta ka dambaysa dhimashada akhrista kasta oo roga safxadaha buuggan. Waxaa xusid mudan in qofku sheekadan ku jeesjeesi karo oo uu malayn karo in ay tahay khuraafaad ama hadal la buunbuuniyey. kuwo kale waxa ay la xidhiidhin karaan arrinta sixir, balse waxa la yaabka lahi waxa uu yahay in nuxurka buuggan iyo waxa ku qoran ay yihiin wax iska caadi ah. ma aha wax qariib ah ama sheekooyin kala duwan, laakiin waxa la yaabka leh ayaa ah in qof kasta oo buuggan fura oo isku daya inuu akhriyo waxa ku jira uu noqonayo hubaal mid ka warqaba waxa ku soo foodka leh, isla markaana uu u dhiman doono taabashada buugga iyo inuu si toosa u akhriyo isagoo aan lahayn astaamo la yaab leh oo laga daalacan karo sababta. qoraaga buugga hooska ee derbiyada dhimashadu waa qoraal Mareykan oo lagu magacaabo Robert Kitzie oo ah professor cilmiga kiimikada kuna dhashay Mareykanka 1823. Robert Kitzie waxa uu qaatay shahaadada chemistry-ga iyo caafimaadka, waxaana uu ku shaqeeyay dhakhtarnimo muddo 11 sano ah. wuxuu ahaa dhakhtar qalliin intii lagu guda jiray dagaalkii sokeeye ee Mareykanka. markii uu gaadhay da'da 40, waxa uu ka shaqeeyay kulliyadda beeraha ee gobolka Michigan, waxa uuna dhintay bilowgii qarnigii 20aad, gaar ahaan 1902. haddaba maxaa ay tahay sababta dhimashada cid kasta oo isku dayda inay akhrido buuggani? sida laga soo xigtay natiijooyinka cilmi baadhayaasha, sababta ay u dhinteen dadkii akhriyay buugga Shadows of the Walls of Death ayaa ah in qoraaga Kitzie uu ku sameeyey jaldiga sare iyo safxadaha buugga sunta arsenic, taasoo u horseeda dhimasho toos ah kuwa taabta ama ku dul neefsada. arsenic waxaa loo tixgeliyaa mid ka mid ah walxaha sunta ee badanaa loo adeegsan jiray dilka ama isdilka qarnigii 19aad iyo wixii ka horreeyey, gaar ahaan waxaa lala xidhiidhin jiray dadka caanka ah iyo kuwa hodanka ah, waana ta keentay in loogu yeedho sunta dadka caanka ah sababta sumaynta tiro badan oo dad caana ah, gaar ahaan hogaamiyihii Faransiiska ee Napoleon. ujeedada ka dambaysa buugga qoristiisa, kiimist ahaan iyo dhakhtar ahaan, Kitzie waxa uu ka walwalsanaa deegaanka iyo saamaynta ay suntu ku leedahay caafimaadka aadanaha. daraasadaha uu sameeyey waxaa ka mid ahaa daraasad si guud u muujinaysa halista isticmaalka wallpaper midab leh oo lagu qurxiyo derbiyada guryaha, taasoo la bilaabay in laga isticmaalo Mareykanka sanadkii 1739. baadhitaankiisa cilmiyeysan, Kitzie waxa uu caddeeyey in waraaqda gidaarka ee wakhtigaas ay ku jireen xaddi sare oo walxaha sunta arsenika, iyo in atamka arsenigu ku dhex socdo hawada oo uu qofku neefsado, taasoo keenta madax xanuun, miisaan lumis iyo ugu dambayntii dhimasho. Kitzie waxa uu ku baaqay in la joojiyo samaynta waraaqaha gidaarada maadaama ay khatar ku yihiin caafimaadka dadka. si kastaba ha noqotee, cidina dheg uma dhigin dhawaaqyadiisa. markaa kadib waxa uu bilaabay inuu ka fikiro qaab kale oo uu codkiisa u gudbiyo una iftiimiyo fikirkiisa. Kitzie waxa uu soo ururiyey muunado waraaqaha gidaarka ah,
oo ay ku jiraan xaddi sare oo arseniga waxaana uu ku dhex laabay 100 nuqul oo ah buug ugu magacdaray hooska ka imanaya derbiyada dhimashada waxaana uu qaybiyay maktabadaha Mareykanka. Arseniga ama sida loogu yeedho sunta dadka caanka ah waa mid ka mid ah walxaha ugu sunta badan ee galaaftay nolosha shakhsiyaad badan oo caan ah taariikhda. Sumaynteeda waxaa sabab u ah xaqiiqada ah inay tahay walax aan midab lahayn, xitaa dhadhan ama ur lahayn, taasoo sahal u ahayd dilayaasha doonaya inay si fudud wax uga takhalusaan. Arseniga ayaa la rumaysan yahay inuu yahay sababta dhimashada Napoleon Bonaparte, Beethoven iyo kuwo kale oo badan. Si kastaba ha noqotee, cunsurkani waxa uu ku jiraa jidhka bani'aadamka qaab dabiici ah, qiyaas ahaan 10 miligram, waxaana uu ka shaqeeyaa sidii loo kicin lahaa soo saarista hemoglobinta dhiigga. Masaaridii hore waa ay yaqaaneen maadadan waxaanay u adeegsan jireen in ay mariyaan jidhka kuwooda dhintay si aanu isu bedelin. Waxaa xusin mudan in arseniga ay tahay walax kiimika ah oo laga helo dabeecadda, taasoo la kala saaray loona adeegsaday dhinacyo badan oo ay ka mid tahay qaybta caafimaadka. Waxaana jira daawooyinka qaar loogu talagalay daaweynta xanuunka rheumatismka, waana xaddi aad u yar oo aan waxba yeelayn caafimaadka qofka. Marka lagu sumabo sunta arseniga, astaamaheedu waxa ay bilaabaan inay si tartiib ah u soo muuqdaan kadib marka ay dhex galaan dhiigga dhibanaha, taasoo adkaysa in la daweeyo, balse marka la qaato tiro badan waxa ay horseedaa isla markiiba dhimasho degdeg ah. 100kii nuqul ee uu qoray Keatsi waxaa laga soo reebay 2 nuqul oo keliya ah, kuwaasoo yaalla Mareykanka, gaar ahaan jaamacadda Michigan, waxaana loogu talagalay in jaamacadda lagu dhex akhriyo iyadoo uu akhristaha raba inuu akhriyaa xidhanayo dhar loogu talagalay iyo gloves. Gabagabadii daawada sheekada buuggani ma waxa ay kula muuqataa argudasho uu dhakhtarku sameeyey mise fariin si sax ah loo diray? Mahadsanid.